Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeedka daawada. Si aad warbixintan iyo warbixino kale uga socotid, fadlan nagu soo biir page-keena Mirir Media si aad noola socoto dhegeysta. Waa hagaag. Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay hindise sharciyeedka daawada kadib markii ay ka doodeen isla markaana cod u qaadeen. Kalfadhigan ayaa ahaa kii toddobaad, kulankiisuna wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana shir gudoominayay Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka Sacdiye Yaasiin Samatar, waxayna natiijada codeynta noqotay 141 xildhibaan oo taageertay hindise sharciyeedkan. Hal xildhibaan ayaa ka aamusay, iyadoo aysan jirin wax diidmo ah, sida ay ku dhawaaqday Marwo Sacdiye. Ansixinta hindise sharciyeedkan ayaa timid kadib markii Guddiga Horumarinta Adeegga Bulshada ee Golaha Shacabka uu xildhibaanada u soo bandhigay warbixinta akhrinta saddexaad ee hindise sharciyeedka. Wasiirka Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada Dr. Cali Xaaji iyo Guddoomiyaha Guddiga Horumarinta Adeegga Bulshada Xildhibaan Nadra Saalax Cabdi ayaa xildhibaanada uga mahadceliyay ansixinta hindise sharciyeedkan, ayagoo sheegay in waqtigan uu muhiim u yahay bulshada Soomaaliyeed inay baahi weyn u qabaan adeeg caafimaad. Inta lagu guda jiray kalfadhigan, mudanayaasha ayaa sidoo kale ka dooday axdiga xakamaynta tubaakada, ayagoo ka hadlay saameynta xun ee tubaakada ku leedahay bulshada, gaar ahaan dhalinyarada, iyo baahida loo qabo in la sameeyo siyaasado midaysan oo ka hortagaya isticmaalka tubaakada. Mudanayaasha ayaa sidoo kale la siiyay warbixinta akhrinta labaad ee hindise sharciyeedka amniga saybarka Soomaaliya iyo hindise sharciyeedka sharciga ciqaabta, si loo sii wado dib u eegista iyo ansixinta sharciga muhiimka ah ee dalka.